Hashim Dhaqani katika hospitali moja California katika mtaa wa Eastleigh. maxaa ka dhacay maxkamadda shalay markii la geeyay Hashim? maxay tahay waxyaabaha lagu soo eedeeyay? xukunka halkaasi ka dhacay, sababta warbaahinta looga qariyay, xogahaas oo dhan ayaan rabaa inaan kula wadaago. 24 saac ee lasoo dhaafay waxaan isha ku haynay meediyaha gaar ahaan warbaahinta dalka Kenya inay wax ka soo qorto shalay maxkamadda waxa ka dhacay in Hashim la maxkamadeeyay iyo in kale. haddaba xogihii ugu dambeeyay ayaan rabaa in kiiskaasi aan kaaga warramo, sida wax u dhaceen iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee halkaasi ka dhacay. haddaba muuqaalkan share garay la wadaag saaxiibadaada. haddii aad nagu cusubtaan nagu soo biir waa mahadsantahay. eedeysane Hashim Dhaqani Mohamud oo loo haysto kiisas qaarajin ah oo kula kacay 3 dumar ah Soomaali ah oo isku qoys ah iyo gabar kale oo xiriir kala dhaxeeyay laguna magacaabo Deeqa Cabdinuur. shalay ayaa la geeyay maxkamad ku taala magaalada Nairobi oo lagu magacaabo Makadara Court. shalay maxkamadda markii la geeyay waxyaabaha ka dhacay maxay yihiin oo si aad ah ay warbaahintu uga wareen. in muddo ah waxaan ku celcelinayay in Hashim kiisaska lagu haysto ay ka badan yihiin waxa caadiga ah ama bani aadamku oo ku fahmi karo. in Hashim kiisaskiisu ay cagaha la galeen kiisas aan inaba caadi ahayn, in dad xitaa aan ahayn Kenyaati oo ajaanib ah laga codsado kiiskan in baaristiisa ay qayb ka qaataan. maxkamadda way ku filnaaweysay muddo bil ah oo ay qaateen xeeraarinta. Hashim waxaa lasoo qabtay 4 bisha, waxa ay qaateen 21 maalin, waxa ay ku darsadeen muddo asbuuc ah, waxay qaateen adiga bil dhiman 2 maalin oo kale. tusaale ahaan way ku filnaaweysay. haddana waxay qabsadeen ku dhowaad 20 casho in baarista Hashim lagu soo gabagabeeyo. shalay maadaama 2 bisha lagu ballansanaa waxay sameeyeen in laga hor akhriyo dacwadiisa, dembiyada loo haysto, waxyaabaha uu galay, in 3 dumara hooyo iyo gabadheedii iyo gabar ay habar u tahay uu gacantiisa ku qaarajiyay, laakiin uu eedeysanuhu leeyahay aniga gacanteedii kuma qaarajina waa liigula jiray oo tiim kale ayaa falkan geystay. inuu qirtay in Deeqa Cabdinuur uu qaarajiyay, laakiin ilaa hadda hilibkeeda aan la aragin, lafaheedii oo kali ah markaasi ay ku maqan yihiin. in dhalinyaro Kenyaati ah uu ka dhoofiyay dalka dibna aan loo arag, lana aaminsan yahay inuu ka iibsaday wadamo ama ajaanib ah, kooxo mataqaanaa ka ganacsada xubnaha aadamaha. in uu la shaqeeyo qolo dhaqaatiir ah oo Nigerian ah oo iyaguna barnaamijyadas ka ganacsada. in dhaca internetka uu qayb ka geysan jiray, inuu heshiis la galo dad ajaanib ah, inuu wadamo darisa oo falal amni ka soo geystay sida Soomaaliya iyo Ethiopia, in wadankan uu kusoo galo sharci darro ah, in sharci uusan mudnayn oo ka qaatay. waxaasoo dhan oo dembiyaha ayaa lagu haystaa ninkaas odaga ah ayaa shalay laga dul akhriyay. sidoo kale maxkamadda waxaa laga codsaday in xabsiga laga sii bedelo ilaa iyo inta maxkamadda laga soo taagayo 25 bishan. dabcan 25 bishana waa taqaanaa waa xilligii fasaxa Christmaska la aado, wayna adag tahay xilligaasi in maxkamad la isugu soo laabto. adiga ninkan kiiskiisu isaga wuxuu qaadanayaa bil kale, bisha koowaad meelahaas oo kale ayaa haddana maxkamadda dib loogu soo celin doonaa. sababta loo codsaday xabsiga kale waxaan xogta ku helay in la sheegay in Hashim uu isku dayay in xabsiga uu ka baxo isaga oo ballan qaaday saraakiishii gacanta ku hayay in lacag ugu jiro akoon uu ku leeyahay dalka Ethiopia oo markaasi dadkii uu xasuuqay ku qaatay inuu siin doono haddii ay markaasi xabsiga ka daayaan. saraakiishii ayaa markaasi report ka gudbiyay, xabsiga waa laga bedelayaa. xabsi kale oo markaasi xabsiga dhexe oo Central
prison ahaa la geynaa, waaba la geeyey, shalay ayaa la qaaday. Adigu soo duuduubo shalay ninkaasi meesha waxaa loo geeyey xabsi xalaaleyn, sababtoo ah xilaalintu waxaa laga rabaa marka koowaad lasoo qabto 24 saac in qofka maxkamad loogu geeyo, xabsi xalaaleyna loo soo qaadaa, kadib dambiyadiisii cadeymihiisoo fuulaha la diyaariyaa, maxkamadda dib loogu celiyaa, markaasaa borsesku bilaawdaa, markaasaa dambiyihiisa laga dul akhriyaa, wuu isdifaacaa, kadibaa xakun ku dhacaa. Marka maadaama stiil dambiyadiisa ninkan ay yihiin faanoo la fari kama qodno oo weli aan la gaarin, wax badan ay dhiman yihiin, xiraalinta iyo dambaaristu inay ku degdegaan ay diidan yihiin, sidoo kalena baaris ay ku wadaan eedeysanayaal loo haysto falkii Haashim lagu soo qabtay, oo ay kamid yihiin xubno kamid ah qoyska, dadkii la xasuuqay sida gabadhii la qabay gabadha, iyo sidoo kale xubno kale familka oo isku xiran labadooda, koox Kenyaati ah oo ka dambeysa ama ku shaqeysata inay dadka khaarijiyaan, waxaasoo dhan inay gacanta kusoo dhigaan, iyo kiisas fara badan oo Haashim loo haysto in ayagana cadeymahooda la helo, sababtoo ah maxkamaddu markaa qaadanayso kiis aan cadeyntiisa la helin. Xilaalinta qorsheeda waxay tahay Haashim marka ugu yaraato in lagu xakumo cimriga ha ku furto amase 100 sano oo xabsi ah, inta ay dembi ku heli karaan waxay rabaan inay raadiyaan oo ay mataqaanaa sidii ay ku heli lahaayeen ay mar walba ku dadaalaan. Marka xabsigina waa laga bedelay, 22 maalin way qabsadeen, ilaa 22 maalmood dabcan, laakiin xilli Christmas la galayaa, macquul ma aha 5 bisha in maxkamad la soo taago. Marka markastaba Haashim familkiisa iyo lawyerkiisa waxay ku dadaalayaan inay maxkamadda ka hor sheegaan in ninkan uu yahay nin mentally xanuunsan oo maskax ahaan jiran, caafimaadkiisa uusan fiicnayn, sidoo kale loo geystay jirdil, dhibaatooyin xooggan lagu sameeyey, asagii nafsadiisa la halis geliyey, lagu eedeeyey inuu cuno jirka ama hilibka biniaadamka, waxaasoo dhan. Marka meeshaas waxay ka raadinayaan fursad, waxay leeyihiin oo kale tusaale ahaan gabdhihii la laayay iyo isaga waa qaraabi ahaayeen, ehel ahaayeen, dad isku dhow ahaayeen, sabab loo dilo meesha ma taalo. Adigu laakiin muhiimaddu waxay tahay inay kusoo gabagabeeyaan ninkan intaan maxkamad la saarin ama kiiska maxkamadeynta usoo bilaaban, in dhakhtar la geeyo, in la soo baaro, dhakhtarkii markaas iyaga ay ku qancaan la geeyo si hufan kiiskiisa ugu dhaco, xukunka ka soo baxana ay ehelku ugu qancaan, abukaatihiisa amase qofka u doodayana xukun uu ku qanacsan yahay halkaas ay ka soo baxaan. Marka waxaan sugnaaba waa Haashim oo gaaray 25 bisha maxkamadna la geeyey, laakiin wax kastaba filo inuu Haashim baxsado, waxba uma jirto Kenya in la baxsadana wax weyn kama ahan. Haddii ninkaas u baxsana dib dambe looma arki doono, sababtoo eheladiisii waxay la garab taagan yihiin qarash iyo dhaqaale. Marka waxaa kasoo kordha kiiskaas waxaan kugula wadaagaynaa muuqaaladana xiga. Waana mahadsantahay.